بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaynu fadhigan ku bilaabaynaa kelimo aan ugu magac daray taxdiir الفقهاء من تفريط السفهاء في الأسماء والأحكام. culimada muslimiinta sida ay uga digeen xadgudubka ay ku sameeyaan dadka aqoonta yari mas'alada ku saabsan asmaad iyo axkaamta. kelimada waxaa keenay inaan isku dayno inaan kelimada qabanno oo aan rajeynaya inay xalaqaad iyo fadhiyo dhowr qaadato. shantii sano u dambeysay mas'aladani qoraallo waan ka sameynay, maqaalaad baanu ka sameynay, kutub iyo rasaa'il baanu ka alifnay, meelaha baraha bulshada wax lagu qoro sida Twitter-ka iyo Telegram-ka waxaan ku qoraa Carabi ah. marka bulshadii Soomaaliyeed ee afkan aan hadda ku hadlay taqaanay ama ku hadlaysay baa wax badan oo cabasho ka yimid oo inaysan masaa'ilka qaarkood u cadaanin ama aysan fahmin baa muuqatay. taasa waxay keentay ama wacday in xogow la xaab qaado mas'alada asalkeedana la muujiyo, khatarta ku jirta haddii lagu khaldamana ee la iftiimiyo, dadkaas wax ka qulban yahayna wixii loo sii karo loo saxo. ujeedadu waa inta. marka laba fasal bay kelimadu ka koobnaan doontaa. waaxda koobaadi waxay ku saabsanaan doontaa insha Allah taala islaamka iyo qofka wuxuu muslim ku noqdo, islaamku waxa lagu soo galo asalka ah. waaxda labaadna waxa islaamka lagaga baxo iyo ruuxu goormo islaamka ka baxaya, maxaa loo shartiyaa, waa waaxda labaad. fasalka marka koobaad baynu ku horeyn doonaa insha Allah taala. sida waxaynu ka hormarinaynaa maxaa laga wadaa al-asmaa wal ahkaam. culimada muslimiintu hawsha way sharxeen. Shaykhul Islaam Ibn Taymiyyah badan ka hadlay, Ibn al-Qayyim baa ka hadlay, culimada kutubul maqaalaat iyo madaahib الناس ka hadasha ayaa sharxay, ayaguna ka hadlay. Ibn Rajab baa ka hadlay. al-asmaa wal ahkaam waxa laga wadaa ruuxa bini aadamka ah magaca adduunka uu qaadanayo diiniyan ka diin ahaan, ka sharci ahaan. muxuu islaamku ku oranayaa adduunka intaad joogto, magaceed leedahay, maxaa lagu yiraahdaa magaca diineed. lagama hadlaayo magacii hooyada iyo aabaha ku bixiyeen maxamed iyo cusmaan iyo cali iyo geed iyo jaamaca ah. waxaa laga hadlayaa diintu marka intaa laga helo ama falka aad samayso, diinta shareecada islaamku maxay ku taqaanaa, maxaa lagu oranayaa. al-asmaa saasaa laga wadaa, sida muslim, mu'min, kaafir, faasiq, mubtadic iyo wixii la halmaada iyo munaafiq. marka asmaadaasa waxaa loo yaqaanaa al-asmaa. magaca ruuxa la siinayo muslim, mu'min, faasiq, mubtadic, munaafiq, kaafir, magacyadaas waxaa loo jeedaa al-asmaa la yiraahdaa. axkaamtuna waxaa laga wadaa dadka magacyada shareecadu ay heshiisay ay jireen waa muslim, waa mu'min, waa kaafir, waa munaafiq, waa mubtadic, waa faasiq. dadka ay shareecadu magacyada siisay fal ay sameeyeen awgiina magaca loo siiyey, dadka xukunkoodu muxuu yahay? adduun haddii la joogo maxaa u xukuma, aakhara hadday joogaana maxaa u xukuma. al-asmaa wal ahkaam sidaasaa laga wada. masalatu al-asmaa wal ahkaam waa magacyada diineed ay dadku qaadanayaan markay falalka qaarkood sameeyaan, iyo dadkii falalkaas sameeyey ee magacyadaa la siiyey adduunka hadday joogaan maxaa u xukum ah, aakhara hadday tagaanna maxaa u xukum ah. masaladaas marka waxaa leeyahay masalatu al-asmaa wal ahkaam laga wada. saa darteed طائفة والبا ميل بي مركا آدي، معتزلو ميل بي آدي، الأسماء والأحكام أي كو بريقدين مرجادو سيدو كالي. طائفة جهمية دي أي طائفة مسألة الأسماء والأحكام قوانا خلطان يكوا صحن بواكا قاتين وحان كاهين أهل السنة والجماعة. صادرتيد شيخ الإسلام ابن تيمية وحول هذا مركا مسائل الأسماء والأحكام مركو كهضلا يتكفيرك يتفسيقك يتبديعك وحي كمدتهاي مسائلك وحي كمديهين على الأسماء والأحكام. وأنا أسماء إيو مقعيدا اللغو حرو وعدك يبوها وعيدك يقودك النار اللغو وارو إنا اللغو وارين حريرين يقوين حولات إيو موالات يا معادات دل يدين يوحي لها المعنى.
وانا مساله وباهن nin walba inuu iska hubsado oo iska xaqiijiyo sheekh islaam ibn taymiyyah muqayyim rajul waxay yiraahdaan khilaafka u horeeyay ee muslimiinta ka dhaxdhaca ee diineed khilaafka siyaasiga hay dambeeyo khilaafkii u horeeyay muslimiinta ka dhaxdhacay diin ku lug leh wuxuu ahaa khilaafkii ka yimid ama ka dhaxdhacay ama ku saabsanaa mas'ala hadda aynu ka hadlaynaa al-asma wal ahkam ayadu ka bilowday khilaaf ku horeeyayna ma jiro oo xagga diinta maxaa yeelay waxaa la isku khilaafay ruuxa bini aadamka ee macsiyo sameeya maxaa xukuma ruux bini aadana oo muslim ah ayaa macsiyo ku dhacay kabiira min al-kabaa'ir ruuxa magacii hadduu adduun joogay haddii aakhira uu joogaba maxaa xukuma hadda halkaasay khawaarij waxay dhaheen ruuxi macsiyo ku dhaca adduunka waa kaafir magaciisu waa kaafir waa mushrik waa gaal aakhirana naarba ku waray adduunkana waa in la dilo hadduusan toobad keenin idan magacna way siiyeen xukumna way siiyeen aakhiriya adduunba khuseeya oo cusaatul muwaxidiin iyo ahlul kabaa'ir oo dhan go'aankaasay ka qaateen kufaartay ku dareen magac kaafir bay siiyeen xukum kaafirna way siiyeen dil iyo deynba xagga aakhirana naar bay ku waariyeen waxaa ka hor yimid oo nimankaasi khilaafay murjo waxay dhaheen saaxiibul kabiira ninkii dembi ku dhaca ee dembi weyn ku dhaca waxaa weeye waa mu'min kaamil iimaan waa mu'min kaamil iimaan iimaankiisa wax dhaawacoo gaadhay ma jiro uu dhammaystiraya murji'adu marka oo wacdiya la yidhaahdo iyo khawaarijta waciidiyada hogaamiya nin walba wuxuu ku antaraaray oo ku khaldamay qaybtii ahayd nina waciidkii goodigii baa la fogaaday nina yaboohii iyo wanaagii dadka ahlul iimaanka loo yaboohay baa la fogaaday oo ku antaraaray wayna khaldameen mid walbana khaladku wuxuu ka soo galay islaamka iyo iimaanka ilay waciidiyo oo khawaarij iyo muslo waxay yidhaahdeen waa shay waaxida waa xaqiiqa waaxida oon qaybsami karin ninkii wax iska dhimaanee iimaankiisa islaamkiisu dhaawacayr uu gaadho iimaankao dhan waa tagay halkaasay marka waciidiyo yidhaahdeen waxay dhihi iimaanku waa hal shay islaamku waa hal shay ma nuqsaamo hadduu nuqsaamona ruuxu waa gaadho waa ka baxay waa shayun waaxidun idaa dahaba bacduhu dahaba kulluh xaqiiqa waaxiday ka soo qaadeen marka islaamkii iyo iimaankii ay u arkeen hadduu wax iska dhimo waxay dhaheen waa wada tagay wax ka soo hadhina ma jiro waxay ku mithaaliyeen magaca 10 la yidhaah ama tirada 10 la yidhaah 10 waxay dhaheen haddaad hal ka qaado waa 9 magacii waa isbedelay 10 ma jirto waa xaqiiqa waaxida murakkaba min ashyaa laakiin tarkiibkeedu waxay dhaheen waa tarkiib al-10 laa tarkiib ashajara idan 10 magaca waa la waayaya tira ahaanna waa loo waayay taya ahaanna waa loo waayay magac ahaanna waa loo waayay ruuxi muslimka ee dembi weyn ku dhacay waxay dhaheen islaamka waa ka baxay waa kaafir adduunka aakhirana waa mukhallad fi naar maxaa yeelay islaamku waa hal shay iimaanku waa hal shay isma dhimo hadday nuqsaane ku timaado ruux waa gaaloobaya murji'a waxay dhaheen ayagu islaamku waa hal shay waa sax hadduu sugnaadana maba nuqsaama asagu haddii barhkii la helana kulligii baa la helay waa shayun waaxidun idaa habata bacduhu habata kulluhu cagsigii nimankii weeye waa shay waaxida qayb ka mid a haddii la helo kulligii waa la helay aslul iimaan haddii la helay waa dhammaystiranaya ruuxu macsiyadii uu la yimidna waxba iimaankiisi yeeli mayso oo waa mu'min kaamil iimaan ayuuna halkaasi ku antararin ahlu sunna waljamaaca iyo ciddii la halmaashay oo dhan waxay dhahay iimaamku waa xaqiiqa murakkaba min ajzaa tarkiiba shajara sida geedkoo kale geedka weyn jirid buu leeyahay xididuu leeyahay dhulka antororsado gala lud buu leeyahay iyo dhumuc buu leeyahay laamuu leeyahay caleemuu leeyahay geedkaasi haddii laan laga gooyo weli magacii geedka wuu joogaa laan kalaa la gooyo weli magacii geedka waa jiraa waxaa la gooyey qaybta hore oo dhan baa la jaray weli waa joogaa dhaxbartanka minshaar laga geliyo la kala jaray weli geedkii waa joogaa dhumucii weyneed baa la jaray weli xidadihii iyo waxaa taagan geedkii salkiisi marka waxay dhahen iimaanku waa xaqiiqo ka kooban intaasoo shay intaasoo ajsaa
mid kamid ah haddii la waayana kaa la waayana oon shardun lisixati aliimaan uusan ahayn weli magaci waa jiraya iyagoo tafsiir waxay leeyihiin waa xaqiiqa murakaba min ajzaada laakiin kala duwan qaybaha iyo gabalada iimaanku ka kooban yahay way kala duwan yihiin qaybi hadday tagto iimaankii weli waa kuu joogaya asagoo dhaawac u gaadhay qaybna hadday tagto iimaankii baa kuu jooga asagoo dhaawac uusan gaadhin dhaawacaasoo dami keenayaa loo jeeda sida sunanka qaarkood iyo haddii laga tago qaybna waxaa weeye haddii la waayo iimaankao dhan baa dumaya say doonama noqotee xaqiiqada iimaanka ee ka kooban ajzaadu tarkiibka ay ka kooban tahay waa sida shajaradoo kale qayb ka mid a haddii la waayo weli magaci waa joogaya xaqiiqadii baa joogaysa iyadoo nuqsaansan ama dhaawac uu gaadhay waxaa dumin kara iimaanka oo geedkao dhan baabi'in kara kufri iyo shirki wixii la halmaala ama camal waajiboo farad ah oo shareecadu ka tagiisa ay ka dhigtay iimaankoo laga tagay sida salaadoo laga tagoo kale qaabkaasa marka hawsha ay u soconaysaa oo loo kala baxaya muhiimaddu waa maxay alasmaa walaxkaam mustalaxaasi waxaa laga wadaa aadamuhu falalkay sameeyaan ee diintu qiimaysay magacyada lagaa siinayo iyo magacyadaasi xukumka ku xidhan ee ama dila ama dayna ama naar lagu waaraa ama aan lagu waarin ah yay ku saabsan tahay alasmaa walaxkaam saasaa loo jeeda markaan marayno mabaaxidta aliimaan والكفر أما أن مرينا الإيمان والإسلام أما أن مرينا التوحيد والشرك مركا لما مريو مباحث تقصها بس إلهي سبحانه وتعالى الأسماء والأحكام مصطلح كلا لغو مقعابا أو صفات تلمامها إلهي مركا لغاها الله أيو وي أهل السنه ينتي لها الماشا أي لدو ذي معتزلة دا أي أوحال إذا معتزلة وحي سوغان الأسماء والأحكام وحين إلهي أديدان كدرتران الصفات إلهي سبحانه وتعالى وحال لهي وعليم وعقال بدني صفة العلم نوليه ويعلم مركز صفة العلم أهيد صفة مصدر بوحات الأذنبا مقعي صفة كدر لنا يلغى اشتقاقي لغا دنبشينا وعليم صفada shaqaynta shaqaynaysa hadii wax la ogaanayo ama wax ogaanaysana oo yaclamu ana waxa la yiraahdaa xukm ilaahay cilmi uu leeyahay waana aqoon badne cilmi baana ku qumay wuuna ogyahay waxa tamaynayso ilaahay waa caliim walahu waana duu cilm walahu sifatu alcilm ويعلم ما تفعل يعلم أي waxa la yiraahdaa xukm magacan caliimana ism baa la yiraahdaa الأسماء والأحكام مركا قاركوت مكلمة مباحث الصفات لما رأينا قاب كاسا ليادا وإلهي صفات كيسا صفة كمصدر كصفة لورنا يو علمي أما الرحمة وكلا فعل كي أفعاشنا حورنا يسوى أحكام أسماء دي اسم الفاعل كأهيد أما مبالغة أهيدنا وحورنا يسوى والأسماء والأورنا يسوى مركا المراد بالأسماء والأحكام مركا في باب الصفات الله لما رأى يصاصا لقوضا مركا لما رأى الأسماء لما رأى الإيمان والكفر الأسماء والأحكام محلقة وضا ما قاعدة ضدك الله سنية مخلوقاتك هي أحكام تأدونك أيكو قادنية صادرت المتسلدو أيهو إلهي سبحانه وتعالى وحيليه وعليم وحيليه ويعلم لكن حديدين العلم إلهي وما أقول صفة العلم إنكر ينظفر إياه وحين كليه إلهي وعليم لذاته لا لصفة قائمة به لذاته إلهي علم إلهي وعليم إياه لكن صفات معنوية أو إلهي كقميسة أو أسمانا لغاية دنبالي أو لغاية اشتقاقاني ما جرتي تاقي marka saas darteed waxaa leeyahay nufaatu sifaat baa la yidhaahdaa waa la ilzaamiyey haddaad macnihii sifadii ilaahay ka qaadod u diido seed magac mushtaqa u keenaysaa mushtaqu minhu waa u diidaysa seed ilaahay u leedahay uu garanaya wax walbana uu ogyahay adoo u diiday cilmigii ogaalka u diiday ayagu laakiin talbiis bay sameeyaanoo
مقعا عليم أسمادا عليم يا سميع يا بصير وكلام يقوليه وصفات صفات بيقوليه وأسماء بيقوليه وحورن بوا الأسماء والصفات انت سوا العلم يا السمع والبصر نوا إنكريان وصفاتي ما شاء الله يسكت أميودة يخص وحوي هذا مقاشة الأسماء والأحكام لباب باب على إطلاقا باب نوا مكد الإيمان والكفر مريسه باب نوا مركز مريسه في صفات الله سبحانه وتعالى حنوجد بين غضب لبعض أهل القبله وحي كإجماعين إيمانك إنه لا أحكام الدونك هي أحكام آخر أهل القبله وحي إسلام كم حابسده إسلام شيكته أما إسلام طبعا النقدين أما كم حابسدين وحي يذكر راعين مرئيسا كقبين إيمانك إنه لا أحكام دنيوية ودونك خصيصو سida ruuxan dhiigiisa naftiisa in la dhowro la ilaaliyo iyo maalkiisa iyo cirdigiisa ama la banaysto wuxuu kale iimaanku leeyahay ahkaam ukhrawiye oo aakhiro khusayso sida in laga badbaado oo naar in lagu waar laga badbaado waxay kale isku waafaqeen in kufrigu uu leeyahay asaguna ahkaam adduunka iyo mid aakhiro ahkaamta adduunka waxa kamid ah kufrigu leeyahay maalkaadii naftaadii cirdigaada in la banaysto midda aakharana waxaa ka mid ah inaad naari ku waarto saa darteed axkaamta ayada ahayd ee iimaanka lagu xidhahayay ee kufriga lagu xidhahayay baa u baahan in la isla fahmo oo la isla dhiraandhiriyo fasalkii marka u horeeyay aan idiin sheega aan ku horeeyo laba dhib baa markana haysta haddaan maanta muslimiin nahay ama casrina aan nool lahay marka mas'aladan laga hadlaayo مسألة ما كان لها الله يلا قضية سوبوت وقضية دكوبات قضية الحكم على الناس قضية اللبادنا هذا كور مدور وكذا الله ومنهج مناسب ككوة إن مسلمين تنولش ودن خربان الدين كبال مرتي الشرع دي كفقاتي منهج أوجه هبون كصوت دبالي دي مسلمين تلقوا صوت دبالة وضد الرسول كي الدين تندي بلقوا سعيلا وضد الله مريا وضد قضية الله مريا منهجين أقاضينا قاب كي مناسب سنة وناك سنة مسلمين تلقوا سعيلين كرا لقونا صوت دبالي كرا مسلمين تلقوا صوت لابتان دين تودي وضد وناك سنة منهج كاسوا الله يسقوها يا أو لبنا باقتاعا هذا اللي كيوحنا نخصي مهم أنا كهل إنما أنت وحاول بالله بإنه قضية الحكم على الناس dadka maxaanu ku xukumaynaa maxaa dadka naga aadan bulshadan islaamka sheeganaysa malaayiinta ee balaayiinta ee insaan iyo xunbale in islaamku ku maxaabsanayo in dhabka yahay bale qaabkee ee loo xukumayo maxaa naga aadan laba daaifa marka soo baxda niman qulaad la yiraahdo oo aan taraaray oo aad iyo aad diinta u baalmaray fogaaday khawaarij al-casrna hadda anigu aan ku magacaabo dad badan ay ku magacaabeen oo annaga mooyeen ummaddu inta kale waa gaalo ninaan anagu islaamka ka saxnay oo wax ka toosinay mooyeen intiisa kale intooda kale waa gaalo nin walbo shacairta islaamka muujisto ashahaato tawxiidsado tukado soomo salaada haddaan anagu aanan iimaan dhaba ku ogeyn waa gaal ama markay u wanaagsan yihiin way ka tawaqufayaan waa ka joogsanayaan gaal oran maayaan muslim oran maayaan nimankaas marka qulaad baa la yiraahdaa nimanka meeshan ay marka ku aafobeen oo bimaada yasiru almar'u musliman ruuxa bini aadamka muxuu muslim ku noqdaa waa fasalka u horeeya qaybta dambe iyaguna waxay ku kharimeen qadiyatu al-hukm ala an-nas waa niman aan jufaad u bixino oo ayagu ruuxi sooma ama salaada ama tukada ama shahaata waa muslim gaalnimo baa ku dhufleeyay hadduu intuu gaalnimo muqurto oo shirku ku dhuflay inta dhagaha bas ay ka soo jeedaan waa muslim waa jaahil waa mutaawil waa macduur wax ka afqurmaba ma jiro shariicadii marka labada qoys way eeday shariicadana furqaanta ayada in xaq iyo baadil kala saaraysay الفرقان وشرعة أحمد عليه الصلاة والسلام هدان وحلا كلا سارين أو وحلا كلا سوعين ضميرك عقل وادمانيا شرعنا مجريزو شرعه وحي شرعه كتاي إن ضوابط دي قواعد الله إلاليو نول بنا تلمانتي سوقاته نول بتارجدي سوقاته لمبر بلدك سوقاته لا كلا بحو أيضا بنان كان لك الجوال لا معامله وحدين تمركا أي أوقشاي
marka waxaan ku hormaraynaa fasalkii koobaad ee ahaa muxuu bini aadamku ama ruuxa bini aadamka uu ku noqdaa muslim. ruuxa bini aadamku wuxuu muslim ku noqonayaa ee mukallafka baaliqa caaqilka ah inuu shahaadateynka la yimaado laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh ama wax la macnaa uu la yimaado. alfaadu shardi maa sida raajixa alfaada in sidaa loola yimaado shardi ma ah in macnaheedii lala yimaado oo tira matala muslim baan ahay ood hoggaansanto in lagaa helo aamantu billaahi wa rasuulihi. shahaadateynka in lafdiga qaabka loola yimaado weedha ama macnihii lala yimaada shareecada lagu soo galaa. shareecadu marka mar hadday sidaa u daaqday kala qaad ma jiro. ruuxaa la imanaya shahaadateynka calaa wajhi liqraar النطق بالشهادتين على وجه الإقرار من مكلف بالغ عاقل. انت روح بنادم مسلم كن قنية إن شهادتين التي أضلت مادو أم وحلا معنى الله مادو أضو دورتي وعاقل وبالغة ونتشدا هذو سئات أوغلاشا على وجه الإقرار وحالك أفيفنيا هذه شهادتين كأضو دواقضو adoo ruux jilaya ama ka xikaayoonaya. xaatiri wadaadba maanta wuxuu lahaa sidaa iyo sidaa xikaaya la yahay markaa ma lagu islaamaya mise lagu islaami maayo waa masale khilaafi ah. laakiin annutqu bishahaadatayn calaa wajhi liqraar laa calaa wajhi lxikaaya haddaad ugu hadasho ama macnaha shahaadateynka wax lamid aad la timaado adoo caaqiloo baaliqoo mukhtaara waxaa weeyaan muslim inaad tahay baa masale ijmaaciya مسألة إجماعية خلافنا كما تاجنو مدة أيضا إنه خلاف كتيرين وان تلمام من دونا أو وان سوق جرون دونا إجماعاتك حكم كقاب كاسا وحو حسكين هاي قاعدة هاي شريعة وحي إطلاقه وإن سيدي سلوقاته ما أطلقه الشارع يؤخذ على إطلاقه ولا يقيد إلا بشرع قاعدة هاي بأسر طاي شريعة وحي سيدي سيست أيضا دبرين seeta aysan ku xirin sidaa seeta la'aanta uu yahay ee uusan u dabrayn baa lagu wadayaa. macnuhu maxaan ka wadnaa? waxaan ka wadnaa nin walboo la yimaada shahaadateynka oo la yimaada ogolaasho wejigii kula yimaada asagoo caaqiloo baaliqoo mukhtaar ah oo la yimaado waanu xukumaynaa inuu muslim yahay islaamka xukmiga ah. ama yuhuudi ha noqdaan ka wadnaa ama nasraani ha noqdo ama wathani ha noqdo ama asalkiisaba yaanan ogaanin maba naqaano meel ma yuhuudi bu ahaan jiray ma majuus bu ahaan jiray ma nasraani bu ahaan jiray ma mushrik bu ahaan jiray hawl noo taalla ma ah. itlaaqa kaasaan ka wadnaa aadamaha in la qaybo la yidhaahdo hadduu yuhuudigu sidaa yidhaahdo muslimo loo xukumi maayo. laakiin midka dabcaabudka hadduu yidhaahdo shahaadateynka la yimaado islaam baa loo xukumi maya midka majuusiga maya midka siikha ah maya midka buudiyaha ah. in aadamihii la qaybiyo shareecada islaamku ay xukumaysay laguna qaybiyo طريقة سوقليد الشارع على الإسلام كلا سوقلي الدين كلا سوقلي وخطأ لما قايمين كرو شرعه حلوس زي بشر كانوا دنبا هل وضي أتشي حذي الدين كسوق قلات هل الباب أفرطوا معي النطق بالشهادتين على وجه الإقرار إن يكون هلان وإلي ما دان شهادتين كأيغو وقلا شقابكي أولا إيمانية أما شهادتين وح معني سوكر الإيمانية الباب كان ننكي اللي صومر ودم حكومة إنه يهاي مسلم معناها اللوجة دي سيدا سوي هداد أرغب تدد قيبيني وأرنايا كوح داسي هداي لاتمادو وحي إسلام كان لغو سوقلي لغاية لماي كوح داسي هداي لاتمادنا ولغاية لي ريهبل ولغاية لغاية لماي وخطأ بيكو جيران وحين قيدين أو يدبرين وحسي إلهي الرسول كيسي أيضا ضبرين شروطنا إسان كحرين شيخ الإسلام هذا الكيس وحاكم ما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده. مر بعض حوليه فلا يسوغ الخروج عن موجب العموم
عن موجب العموم عفوا والإطلاق في الكتاب والسنة بالشبهات، ولا يصوغ الذم والعقوبة بالشبهات، ولا يصوغ جعل شيء حقا أو باطلا أو صوابا أو خطأ بالشبهات. مقصود كاس مركنات فانتين بإلى التهي معناها أنه شيخني طريقة هل طريق بالغوصو قال إسلام كو إن الله تمادو شهادتينك أما وحلا معنا أو الله تمادو أو قلاشي يليد هوغانسان قابك وجهي أظن إيجي جنسية هذا دين تادي هو رمحي منا أن لا فيرني حاجات كتمت حاجات كسوجيدا قويسكيت تاي قبل كيت تاي لما إيجي ديني أهان محاد أهان جبت الإسلام كهرنا لما إيجي معناها القرآن كاتلمامي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا. أحاديث باب كتمت يا أسباب النزول كوي عدهاي أما تحية الإسلام أحد كاسها لي ما تسبب النزول إسلام الإسلام أما إسلام أما أشهاته سida nusuus bay cadaysay waa isku mid ruuxi aad ku aragtaan baa la yiri astaan islaam ama shahaatiinki la yimaada hadhihina mu'min matihid muslim matida hadhihina wala taqulu liman alqa ilaykum assalama aw assalama lasta mu'minan maxaa yeelay dadkay aayadu ku soo degtay mujaahidiin baa duulay oo meelay gaaladu qaalib ku tahay joogay meelay gaaladu ka talisay joogay إذن روحات كواركتان أستان إسلام أما أشهاته إيمانك لغما أنفيكر هدان لغا أنفيكر محا الله سوغايا إسلام نمو محايا لو حود حي إسلام نمو إيو قال لما متشرو خير لباد متشرو مؤمن متهيد مسلم متهيد مرده كرتان بل هدان مسلمين تهيد قاطع أمرك إلهي بيان كزي عدين تيس هدين تان لو دوام محاي أحكمه ومعاها لغاها الله إيو روح الشهاتين كذي موجست قال لمن أيضا كوغي أما علامة إسلام تكو أرقتين إسلام وحكومة. ابن عباس آيات التعليقي تفسير كذا كان لو عيري حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله لست مؤمنا كما حرم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه فلا ترد عليه قوله. طبراني عفوا طبري ابن أبي حاتم بسند جيد خصوصاري إلهي وحمسلمين تكحرم أديدي روحي أشهاتي لا إله إلا الله يدي إن لقى أنفي ولا قد تكور إسلام رب ومضى وكرب وأنا أديدي أدايا ديك سويدا كحاران مالك سويدا كحاران وآمن إلهي بأمان سيي كل إحدى لقى وذابه وحايد أمراتك عاية أحاديث متواترة ضاهيد حديثك عمر ابن عمر أنس أبو هريرة جابر معاذ بن جبل يا غير كود وحديث معنا أهان إيوه حكم أهان بمتواتر الفاظ كتمد ويكدونت لك هل معنى يتوغني شهاتين روحي لي ماذا إن إسلام الله حكمه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وذا دا وحيدا الناس وحلوج دا مشركين وثنيين صح ما تفسير كاس لأنه مركز تفسير كقابها أوليس وحالة ربا إن أدوغا شيكتو حديث كان حلو النبي وكل واقع وكوها الله ما هاي حلي جزية الواجب يلي وأهل الكتاب كإن جزية لقى قاضي شرط هاي هو إن تاريخ التشريع وين دوقاته سيدا الراجحة الناس وعام ضدور دنوي نبي قال إنه تصدون عليه الصلاة والسلام يهودي النصارى إنه هاي لا إله إلا الله محمد رسول الله هذان إسلام الله حكمه إن مركا الناس اللي يددوا الثانيين تبسوا وفقدا قارقت كوار كيسان وخطأ نبقوا عميمي مكلا قادن هذا الكواب باهي سيطري دبركو كفوري مشرك وثاني مكلا قادن كتاب مكلا قادن دار كفر دار رد مكلا قادن وحول وحال يفري ضدك إن الله دقالمه إلى أي لي مادان شهادتين وأنا حديث متواتر بمعناه عند أهل العلم وحاكم إذا حديثك وأنا صحيحك كي ماذا يمابن سننك وكم مشغول منه حديثك علي با كم إذا مالك النبي وخيبر وفرني وذكرني سان علي بودي بي رايدي وحوري انت هذا الحبط ده كردين أما هذا سيفتا كأصل قال هذا يهودا كتابيين تا دين توغيين
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما كلا قادم أمرت أن أقاتل الناس كجران وأهل كتاب لما كلا قادم كرمركا وذيقض يجدك اللي قصوا قال الإسلام كمركا إنه كهالله إنه كتابي إيا مشرك وثني لك لقد هو خطأ وأنا قالوا دونه فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذي أشهاتان يهود وأهل كتاب هذي أشهاتان مالك نفتض بويكا إلى أشهد حديث أبي هريرة أصنع والله معروف سيداكو إيماني حديث كاسد اللفظ عن شيعي مسلم أصول صار من حديث أبي هريرة وعن قصة علي القرنيسان لو أكون أفر بقوليشان كبيرية. مقام كهذا ومقام بيان نبغى عضينا يا قضية نوع العلم لما كلا قاضي كروثني مشرقة هي كتابي لما كلا قاضي لما كلا جين كرسول جريد إسلام ك وحان ربائنا فانتان وحان قد الحور دون أن من حنا في اللي جادو بدن أو يري نينك مشرق وثني جا أنت وحكو إسلامي ونقول مايسو كتابي جا النصراني يهودي إسلامي ما ونقول مايسو oo qaybiyay waxaan rabbi qaybinay rasuulkii qaybinay oo bidca la yimid ayagaasan marka rabnaa inaad fahantaan waxaan hawsha ugu celcelinay maqaamku marka waa maqaam bayaan oo nabigu wuxuu cadeynaya dadkii iyo aadamuhu ama ha noqdeen ahlu kitaab ama mushrikiin wathaniya ha noqdeen diinta wadada ay ku soo galayay qaabku waan u cadeeyay in la kala qado marka kitaabi iyo wathani la kala qado waa bidco ninkii hawsha inkirana oo xadgudub la yimid xadiidkii Mucaad bin Jabal baa kamid مكون نبي أدري في آخر عمره يمن سنة كتبنا هذه هجرة أسقى كهالله وحنا محمد باء الدري وحنا يجري إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأنت النبي محمد أوي كفار قريش كفار العرب وثني العرب مشركي العرب طريق إسلام كسوة قليلي ينبغون أفري إن كسوة قلام يهودي النصارى أهل الكتاب إذن يمن وحاج شوقي يهود نواد شوقتي أدو بدن نصارى نواد شوقي نبغوا وشرحي معاد قاب كعيدا هضي توحيد كشهادين قال لي مادان صلاة وشيك كذب زكاة وشيك سداس وكن نبي والله دردار حديث حكوا جرا بصحيح ما قرنا إنسان من حديث ابن عباس قضية مركة تفريقة إن لك لقاضو آدمها سوق ريد الإسلام سوق ريان لك لقاضو وكفارت أسلين تبينو كهلا إنها دولة كجرة نك مرتد كأسوي إنه قاعد تفصيل جونو كجرة ضدك أنا ولي إسلام كسوق قالين ربع إسلام كأنه يسوق قالن محن قربنا شاتين كنا لي مادام على وجه الإقرار وحيد دونها نقدان واجه دين أهان وحيد دونها هذه أو شال اللي يجي معي وحاكم إذا أدلة باب كحديث ابن مسعود حورني يهودي فالنبي ما نؤمن مركز أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله مركز دنتي ثم قال صلى الله عليه وسلم لو أخاكم ني يهودا نبي يمت ونبي الله حنقريا لا إله إلا الله أظن رسول الله باتها وحير كدب أنك تي الله كتب ونف بحي نبي قال صحابه يقول لو أخاكم ولكن حلكي سلو وريقا إذن كنت توليا مايرا كنت كذا حبالة يهود كلا سو وريقا محكو إسلامي شهادتين بس وأنت كفار قريش يكون إسلامي جرت حديثك أحمد باصور صار ابن أبي شيبة الطبراني بيهقي في الدلال وأنا حديث حسنة وهكذا حديثك أبي صخر العقيلي نبي عليه الصلاة والسلام مالي مع المحكمة أي مني يهودي أو تورد أكل فرنطة وآخرها نبي يقول يا يهودي أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى وأنشدك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل فعظم عليه هل تجدني وصفتي ومخرجي وعفو ومخرجي في كتابك فقال برأسي أي نعم حوري أي لا ما يقول نبقى وحكي اليهوديو الله التوراة كسودجي موسى كوداريه ريب إسرائيل بض يوبيو وكلا جاح مركوش اللي قلوا فتاي نبي مركب وكأتك دارتي بكأتك هل تجدني وصفتي ومخرجي في كتابك بوري مهليسا أنا صبحي دايدا تلمان تايدا هي أنا محمد كتاب كان تورد آخرين سمكو أرك طيب مكو الله مدحو كيري ما يكو ما أرك مدحو كالكلي ويلو دلاي ويرو لتشوغي
ومركا ورفادها أيوه نفتها يساوي حيري والذي أنزل التوراة على موسى إنه لا يجد صفتك وبعثك ومخرجك في كتابه محور إلهي بان كل دارتي نبي موسى تورد كسو دجيي aabahay been baa kuu sheegay buuri tilmaantaada iyo xilliga aad soo baxayso iyo xilliga lagu soo saari iyo meeshaad ka soo bixi magaalada towrad bay ku taallaa wa ana ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annaka rasuulullah wiilkii yaraa anuu waxaan qirayaa rasuulka ilaahay inaad tahay xaq axad lagu caabudan ilaahay keligii uu yahay nabiga wuxuu yidhi aqiimu lyahuudiya can akhiikum intaa keliya aqiimu lyahuudiya can akhiikum ka kiciya yuhuud walaalkii warkar wareega dhaha kala wareega waa la kala baxaya ninka waa muslim aabihi tulkina waa gaalo nabi maxamed baa nin gacanta ku dhigay maydhay kafnay kuna tukaday calayhi salaatu wasalaam muhiimadu marka waxaa weeye yuhuud say diinta ku soo galayaan oo ahlu kitaaba iyo mushrikiintu hal waduu nabi ka dhigay calayhi salaatu xadiidkaasna sida raajix xadiid saxiixa xadiidka anas fi saxiix al-bukhari baa kamida yahuudigii nabiga u yimid ee yidhi waxaan qirayaa in aad rasuulka ilaahay tahay kadibna dhintay nabiguna odhan jiray salluu calaa saaxibikum ku tukada saaxiibkin ku tukada xadiidka asaguna waxaa soo saara axmed النسائي في الكبرى حاكم إمام أحمد نوح حجيست حديثك أسقى في مسائل المهنة أيوكو حجيستي حديثك أنا سيكلي كدوانا متكنا في صحيح البخاري بقى كمدة أدونك راي شقين جري النبي عفوا أدويلك يهود النبي عاون جري وأديك جري وحنون صدي النبي بوضع صوت سلامي مركز النبي وحيرو رادت وانكو أركاي تي الله كويسي ما إسلامتي وإسلام أبيه بفيري ما إسلاما سو كيدا قادنا يعيش وقا باقاي ونحن سنويلك أبيه وحيرو أقيا حكاستيه والله السعودية إسلام بو إشاري ويلكي با إسلام وحوني أطيع أبو القاسم وحوني ويليهو أبو القاسم أطيع أسيق قال كها يا أبيه أما إسلامي ويلكي راي نفبح حي وحولي أبو القاسم أطيع إلى بهي الداية هي مركو إسلامي بين نفتو قدر ويلكي يرى الحمد لله الذي أنقذه من النار بالنبي قولي معنكو إسلام الشياطين كانوا لا يمتكليه هذوك في صحيح البخاري بكوي ما داوات قرنيسان بيلاتاي أحمد نواوريه إذا النبي محمد كله صوتري إنه أمضى أكل عدي باطل كي حقه وشرحه وضد الإسلام كسو قليان نارنا كجبت باديان مكلا قادين آدمها مكلا لإيغو قال هذا وضد كسو قليان الإسلام كمكلا قادين اسكمت بوكادجي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إن إلهي بايري قد يضع مركة وحنكفها أني إن لك على التفصيل بين الكتابي والوثني في طريق الدخول في الإسلام إن يتاي بدعة في الدين بدعة في الدين وضد الإسلام اللي قصوا قالوا إن لك للدوب كتابك يا مشرك وثنيك أو اللي هذا مت كان أساسا لقربا كان أساسا لقربا ويكل الدوين وتفريق ما أنزل الله به من سلطان وأنا بدعي لي ما دين حنفي وحي كل سنة وإنه كهذا دونا قلبت هذا الكنت سوكي هاي ففاينتا مسألة أي وحي كدمنا فردقا ككوحي نقوندنا إن شاء الله تعالى والمهتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.